dagaalkii la magac baxay Mohawk ama Mohawks ka dhacay wadanka Majar ama Hungary muslimiintana ay ku guuleysteen guul u dhiganto ama u dhow فتح القسطنطينية maalintii Istanbul ama Qustantiniya la furanayay hadaba dagaalkaas goormuu dhacay natiijada ka dhalatay dagaalkaasne maxaa waay إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ونكتب ما قدموا وآثارهم نعم قفل بو ابن آدم وحالو قرى وحو عمل سمي حمان أما وناك إيو وآثارهم وحو كتغي marka barnaamijkan la yiraahdo waari meeysidee war wanaagsan ha ka haro hadafkiisa waxa waaye inaan ka tagno amal noo lagu soo xasuusto amal noo lagu soo ducooyo alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah walaalayaal meel adduunka joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa qaybtii shanaad oo qisadii sultaan Suleymaan alqaanuuni oo barnaamijkii ahaa waari meeysidee war ha ka haro saasna soo maahan barnaamijkii ahaa waari meeysidee war wanaagsan ha ka haro barnaamijkan la yiraahdo waari meeysidee war wanaagsan ha ka haro waa barnaamij isbuucle ah maalin walbo isniin hal xalaqo ayaan soo sii daynaa laba su'aal yaa loogu talagalay hadafka ama goolka ama yoolka laga leeyahayna waa maxay barnaamijkan waxaa loogu talagalay adiga loogu talagalay gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaro caqli badan waaye meel kastay tagaan wax ku sameeyo sidaa darteed waxaan rabnaa inaan dhaho tahriib ha gelini wadanka joogtid wax ka qabso hadafka laga leeyahay ama yoolka laga leeyahay waxa waaye dadkii cudumada ahaa oo adduunka wax bedelay inaan taariikhdooda كذال أوغن نقولنا أقرنو فقصص القصص لعلهم يتفكرون صحابة ما كشيكينين وحال اللي صحابة ددوا وين والنبي قاسو تربي انت حدا كشيكي صحابة معها ولا ليال حلقة دي لصور دافي وحان كسو شيكويني ديار قروبي دقالكي لما قعبحي موهاك أما موهاكيس oo ka dhici doono meel la yiraahdo waadi banaano Mohawk la yiraahdo waxaan soo sheegnay reer galbeedkii Yurub dhan inay midowday waxaan ka ahayn 4 dawlo ciidamo ay keeneen dhinaca kalena sultaankii Suleymaan alqaanuuni asina ciidamadiisa inay dhinac kale soo istaageen su'aalan isweydiinay maxaa dhici doono maanta sheegayna waxa dhacay maalintaas insha Allah Mohawk waxay ku taalay koonfurta caasimada Budapest caasimada Hungary ama Majar ayay ku taala waxayna u jirtaa 170 kiiloomitir waxaa la gaaray maalintii 21 bisha Dilqacda waa bisha xajka waaye sanadkana uu yahay 932 hijriga waafaqsan 29 bisha Agost 1526 maalintan xifdi meel ku qoro waa maalin qiimo badan dadka muslimiinta badi aysan aqoonin habeenkay soo galeysay 21 maalintuu dagaalka dhici doona habeenka ka horeeyo sultaankii sultaan al-cadiim Suleymaan alqaanuuni habeenkaas qiyaam al-leyl u tagay waa sultaan muslim saasa laga rabo madaxweynayaasha kursi ina fariisad wax walba ku iimaanay ilaahi ku xiran oo gacmo kor ugu taag ilaahu gacmo ku taagay markuu u taagay habeenkii dhan uu soo tukanayay subaxii salaada subaxna asiga tujiyay markuu salaada subax tujiyay kadib ayuu ciidamada soo dhaxmaray wuxuu yiri wakaanni bi ruuhi rasuulillahi yanzuru ilaykum al'an waaba iyadoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadda idin fiirinayo ciidamadii hal mari oo hinku wada dhufteen takbiira meesha ka dhacday Allahu akbar
ciidamadii muslimiinta marka waxay galeen diyaar garow iimaanka wuxuu aaday cirku aaday ciidamadii Romaaniyiinta ama Yurubiyaantan iidan sidoo kale waa la soo buufiyay baabayaashooda soo buufiyeen casirka markii la gaaray ayuu dagaalka bilowday laakiin Suldaan Suleymaan al-Qaanuuni khutta wuxuu diyaariyay aan caadi ahayn wuxuu yiri ciidamadiisa 3 qayb u qaybiyay qayb koobaad qaybta labaad iyo qaybta saddexaad oo intishaariyada asiga uu ku jiro qaybta koobaad wuxuu ku yiri xoog u gal dagaalka markaa gashaan xoog ugu dhufataan soo carara oo geeskaas u soo carara markay idinka soo daba ordaan ciidamada ku xigta wuxuu yiri idinkana xoog u dagaalama geeska kale u carara markii ciidamadan ay dagaalameen ciidamada muslimiintu waxay iska dhigeen dad jabay iska dhigeen kuwii kale dad jabay iska dhigeen ciidamadii Yurubiyaanka oo 200,000 ku dhawaado saan u yaacayo waxaa diyaar u ahaa marka al-jaysh al-intishaariya oo Suldaan Suleymaan al-Qaanuuni ku dhex jiro hal mar marka saan madaafiicda loogu soo dhigay waa lagu tuuri wiligood maysan arki madaafiicdaas madaafiicdii hal mar 300 madfac ayaa hal mar dhacay 300 kale laga dabagiyay 300 kale laga dabagiyay oo iska daba tagtageen dadkii gaaladii ciidamadii waxaa ku dhacday halac meel alla la meelay aadaanay garawayeen ayaga isjiiray ciidamadii Yurubiyaanki midoobay 20,000 ayaa meesha aga dhimatay dhulku dhimatay intii kalena baday ku daateen yaa ku dhintay ma taqaan wabiga ninkii dhamaayo boqorkii la dhihi jiray Louis الثاني cararku cararay wabil dhihi jiray nahar Daanus la dhihi jiray meesha ku yaala ayuu ku dhacay meeshii ku dhintay qisigii Baltimore la dhihi jiray meeshuu ku dhintay ciidamadii dhameed meeshii ku dhintaan ciidamadii Majar oo 200,000 ciidan ka badnaa jiray 637 sano ahaa ciidamada ugu xoog badan Yurub hortaagnaa dawla islaamiya inay Yurub gasho wuxuu noqday fi dimmati taariikhdu galay meesha ayuu ku burburay waa laga sheekeeyaa dagaalkan Mohawks liiraaho wuxuu socday 1 saac iyo bar waa banooni inta ku fiirsanaysa Soomahan 1 saac iyo bar uu socday 1 saac iyo barkaas waxaa ku burburay ciidan 637 sano jiray waxaa ku heybad beeshay dawlad dhan meesha joogtay oo Majar la dhihi jiray meeshii ku baaba'day laana dawlad ciidamadeeda baaba'day dadka mu'arrikhiinta qaarkood waxay dhaheen taariikhda kama dhicin dawlad 1 saac iyo bar ama 1 maalin ama 1 dagaal lagu burburiyo kama dhicin waxaan ka sheegaynaa hadda idin sheegaynaa idin la wadaaga waxaan hadda sheegaa dadka mu'arrikhiinta oo Yurubiyaanta waxay dadka muslimiinta maahan dadka taariikhda qoro oo muslimiinta ahayn dagaalkaas waxay ka dhaheen hal kamid ah idin sheega nin mu'arrikh Faransi ah mu'arrikhan Faransiga Aaron Lafis ayaa la dhahaa wuxuu yiri idin aqrina wuxuu yiri lam yashhad at-taarikh harban ka Muhaaj taariikhda ma ka dhicin dagaalka Muhaaj oo kale kamuusan dhicin حسمت نتيجتها على هذه الصورة المفاجئة نتيجة وعلى هذه الصورة المفاجئة هل مرتن وصان ودعذي ولي تاريخ ذا كما دعنو دهي ومحيت أما ومحت مستقبل شعب كبير لعصور طويلة أوبا بإسي مستقبل شعب دن أما عيدا دن وعصور بدن سوجري ciidan dhan oo 637 sano jiray dawlad intaas jirtay fi dimmati taariikhday galeen sidii ayuu ku burburtay sidii ayuu Suldaan Suleymaan al-Qaanuuni dagaalka ugu raayay markuu dagaalka dhamaaday suldaankiina meesha uu ku guuleystay 25,000 ciidan la qabtay suldaanka wuu soo dhaqaaqay wuxuu yimid caasimada Majar Boda markore Boda bas la dhihi jiray lana best magaalo kale ahayd markii midoobeen hadda waxay noqotay caasimada Majar waa Boda best laakiin markaas Boda bas la dhihi jiray best magaalo kale ahayd ama wadan kale soo socday Boda soo galay waxa ilaahay qadaray inay noqoto maalintii Ciid al-Adha Allahu Akbar Ciid al-Fitr halkii ugu soo gashay Belgrade caasimada Serbia Ciid al-Adha ilaahay wuxuu qadaray inay ugu soo gasho عاصمة مجر
oo boda la yiraaho oo hadda la yiraaho boda besta la dhaho. Sultaan Sulaymaan al-Qaanuuni ciidii meeshuu ku tukaday kadib wuxuu u yeeray nin oo majari ah, wuu yiri wuxuu meesha sii maamul, laakiin waxaad ka mid tahay gobol ka mid ah gobolada dawla al-Cuthmaaniya ay leedahay. majar dhan waxay hoos tagtay marka dawla al-Cuthmaaniya hoos tagtay. waxaan kuu xisaabaa gobol, dadkaaga adiga maamul, adaa madax kaaga dhiga, adiga joog, laakiin waxaa ku shaqaynaysaa waxaa qawaaniinka ad-dawla al-Cuthmaaniya. kabacdii sultaankii dadkii ayuu u soo baxay oo wuxuu ku yiri isdejiya, hawalwalina oo hawalbahaarina, annaga umaanan imaanin inaa wadankiina burburino, umaanan imaanin inaa idinka idiin baabi'ino. subxaan allah, hadda taariikhda wax laga sheegay been waay. annaga waxaan u nimid inaan la dagaalano ninkan mujrimka ah oo ballanta ka baxay, ninkan soo diray rasuulkiina dilay, wadankiina deganaada, xorriyadiinana waa haysataan. meesha waxaa aga tegaynaa ciidan ay leedahay dawla al-Cuthmaaniya, ninka idin xukumay waa nin idinka idin ka mid ah, idinkana waxaa idin laga baahan yahay qawaaniinta wadanka Cuthmaaniga oo islaamiga ah inaad ateecdaan, diintiina isku xukuma, diintiina ku jiro saa rabtaan, laakiin qawaaniinta caamka waxaa iska leh الدولة العثمانية الدولة العلية. intaanan soo gabagabaynin waxaan rabaa inaan kuu sheego maah ay dadka majariyiinta ilaa maanta ay isticmaalaan oo ku saabsan dagaalka. waxay dhahaan aswa min haziimatina fi muhaakis. markay wax dhibsadaan waxay dhahaan ma waxay ka daran tahay jabitaankii aan soo jabnay maalinta muhaakis. taariikh waaye oo majar u qoran aysan tirtiri karin. haddaba suldaankii markuu soo gabagabeeyey balgaraadna soo furtay, budapestna uu soo furtay, midna ciid al-fitr uu ku dukaday, midna ciid al-adxa uu ku dukaday, qawaaniinkii uu sameeyey asoo joogo budapest joogto, asoo budapest joogo wuxuu maqlay khayaano lagu sameeyey. yaa sameeyey? dad muslimiin sheegtay. ilaa yowmina hada dawla islaamiya sheegtaan, dad muslimiin sheegto. suldaan dhan oo jihaad ku jiro ayay ka khayaaneen, gadaal ay dhabarka ka toogteen. haddaba dadkaas muslimiinta sheeganaya suldaanka khiyaani yaa waaye? sababtay u sameeyeen maxaa waaye? suldaankaane muxuu ku samayn doonaa? siduu u edbin doonaa? su-aalooyinkaas dhan jawaabtooda haddaa rabtiina ogaatidne waa inuu isniinta soo socoto. qofka ugu horeeya noqo isniinta soo socota. ilaa isniinta soo socota laga gaaraan waxaa laga rabaa inaad dhegaysatid ood ka faa'iidaysatid, ku camal fashid, walaalaha kana usii gudbisid. bakhiil ha noqonin. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.